inay tuugsi laga dhigay suusan u murugoonaynin dad baa waxay dhahaan diintuba ku qaraabsadaa diintu ku tuugsada waa qofkiin hadal buu iska dhahayaa uusan u meeldayin kani waa generator kaas wad aragtaa xalay tadaas ameedkii ugu dambeeyay ku qaadnay xalay bas axan habeenkii xalay ahaa 12 baa socday haddana Mukhtaar waxa uu kamid yahay dhalinyarada faafisa diinta Islaamka wuxuu qayb ka yahay dhalinyaro badan oo ku jiraan barta social media isla markaana waxa uu macsalaamay qoondadiisa TikTok-ga laakiin maanta wuxuu mar kale ka soo muuqday bartiisa YouTube-ka maadaama uu muuqaal dheer cod iska soo duubay oo live ah wuxuu sheegay inuu dhibaato badan ku qabo Yaxbul iyo sidoo kale dad kale oo mararka qaar aad ugu hanjabaan isla markaana ku dhaleeceeyaan aruurista lacagta dadka masaakiinta u aruursho daacigan dhalinyarada ayaa muddooyinkii dambe dhaleeceyn kala duwan waxa uu kala kulmayay dhalinyaro badan oo caan ka ah barta TikTok-ga kuwaasi oo aad ugu aflagaadeynayeen gudaha muuqaale iska soo duubayeen wiilkan dhalinyarada ee Daaci Mukhtaar aan wada ognahay Daaci Mukhtaar waxa uu kamid yahay dhalinyarada faafisa diinta Islaamka ee ah diinteena macaan isla markaana waxa uu kamid yahay dhalinyarada aadka ugu yar ee barta TikTok-ga ka soo faafisa diinta Islaamka marar badan ayaa laga xiray koontadiisa TikTok-ga marar badan ayaa koontadiisa ribood loo diray laakiin gabi ahaanba waxa uu macsalaamay bartiisa TikTok-ga inkastoo markaani uu ku soo biiray dhanka page-ka ee Facebook-ga iyo YouTube-ka haddana markaan dhaleeceyn wuxuu kala kulmay Yaxbul kaasi oo mar qura soo duuba muuqaal uguna gafa Daaci Mukhtaar isla markaana waxa uu ku sheegay in Daaci Mukhtaar oo lacag ka qaata Daahir Calisow iyo sidoo kale dadka masaakiinta kadibna oo u sheegay inuu diinta ugu shaqeynayo laakiin naftiisa ayuu ugu shaqeeyaa ayuu yiri hadalkaas oo aad u guba Daaci Mukhtaar iyo sidoo kale dadka kale ee muxsiniinta ayaa Daaci Mukhtaar waxa uu isla markaana muuqaal dheer xilli xaaladiisa aad u kaxsaneed waxa uu sheegay cid kasta oo been lagu sheego ama la naba ayaan rumaysan karin ayuu yiri Daaci Mukhtaar ayaa muddooyinkii dambe dhalinyarada dhaleeceyn kala duwan la kulmayay kadib markii uu waxyaabo diinta quseeyo u sheego isla markaana u nasteexeeyo sida maalintii hore ee dhacday social media ee ahayd maalin hore sida Khadiija Diiriye isla markaana ugu dhaleeceysay Sheekh Umul markii loo sheegay diinta ayse muddooyinkii dambe waxay noqonaysaa qofkii faafiyay diinta in gabi ahaanba waxyaabaha uu mansab iyo magac ku lahayn qoorta loo saarsho laguna xumeeyo maxaad u faafinaysaa diinta laakiin Daaci Mukhtaar ayaa waxaasi oo dhan waxa uu sheegay inuu ceeb ka saliin ka yahay dadka taageeranay aad ugu xumaadeen in Yaxbul oo kamid ah dhalinyarada ugu dhaqanka xun barta TikTok-ga ee ula hadlaan dadka faafiya diinta Islaamka